وادي سلامة ولا لا هاي جميع كستوى جفتان مقعد وفرحي عبد الرحمن جنال كدابن السام دايما ميديا ما دايما اوفيشال فضلا داكو عصبتها جنالك waxaan idinka codsanaya inaad subscribe noo saartaan haddii aad hore subscribe u saartay fadlan la wadaaga asxaabtaada si ay iyagana uga faa'iideystaan barnaamijyada aan soo dhigno kambalelka ku dhufo si uusan kaaga beerdaroowin waxaan soo dhigno oo aad mar walba u noqoto qofka koowaad ee barnaamijyadeena ku tixan hadduu ay bakar hal noqdo waa mahadsantiin qaab walba aad inoo dhiirigelisaan iyo si walba aad talooyinkii isoo siisaan waayo qof walba wuxuu igu dhahaa farxiyo xagee aaday xagee maxaad usoo geli weysa janaalka youtube-ka maxaa kugu dhacay soo hore u soco haniyad jabi soo dhammaantii walaalahayga wallahi waa mahadsantiin ma garanay qaabka idinkaga mahad celiyo laakiin qof walba isoo dhiirigeliya aad buu u mahadsan yahay qalbiga ka dareemaya dhiirigelintiin waa mahadsantiin waxaan rajeynayaa inaad subscribe janaalkayga isi dhiirigelin doontaan so waxaan idin wadaa maanta barnaamijyo idima wado waxaan doonayaa inaan walaalaha Soomaaliyeed u sheego si aynu u niyad jabin siiba gabdhaha inaan u sheego qaabka ay noloshooda u maareyn lahaayeen runtii aniga nidaha la hadlayo maanta waxyaabo badan ay soo maray waxyaabo badan oo murugada way soo maray waxyaabo badan oo farxad leh way soo mareen inta aan qurbaha joogay so qurbaha dadkayso walaalahay wiil walaalkaya Germany wada jooga walaalahay soo aniga kaliya wadan kale joogo markii aan soo baxay wadankii ka soo tagay halkaan ay imaaday soo Talyaani markii ay imaaday runtii waxa jira caqabado badan runtii ma jirin aqli isku celinayo markaa halkaan imaanay waxaan ahaa qof aad u fudfudud waayo wax walba ay sameynayso ma ixtiraamo waa dareemi karaysaa qof waaniyana aysan lahayn amba qof yacdaho haddana waxaan qabay aqli aan iskaga difaaco waayo qofka markuu cusub yahay waxaa laga faa'iideystaa guur degdeg ah waxaa loogu faa'iideystaa waxyaabo badan taas intaas baan iguma aysan dhicin haddana iyadoo saas igu dhicin waxaa la isku dayay mar walba in saa laga faa'iideysto niyad jabiyo la dhaho farxiya he saa waayo wadanka aad joogto waxba ma qabsan kartid waxba ma sameyn kartid waa inaad guursataa amba wadamada kale aad iska dhiibtaa aad noqotaa qaxooti cusub runtii arrintaas niyad jabay ahayd marka aan soo umaano waxaan jeclaa inaan wax barto si aan wax u barto oo nafsadeeda u maareeyo runtii iyadoo saas jirto waa dareemi karaysaan alxamdulillah laakiin waxyaabo badan ilaahay wuu iga muutay wadadii cad wuu iga waxyaabo kalena way haystaan imika waxaa rajeynaya inuu ilaahay ii fududeeyo taa waxay tahay aan u leeyahay gabdhaha walaalahay inay ka digtoonaadaan waxaan doonayaa inay dhiirigelin u noqoto inay noqdaan qof adag oo go'aan kaligood qaadan kara runtii waxa ay soo martay xilli aan go'aamada aan ku socday oo aan weydiisto waan go'aanka ay dhahaan wixii xun ama wixii wanaagsan bay inay ii tilmaamaan qaarkood wax xun ay dhahaan qaado go'aamadaas haddana iguma aysan dhicin runtii aad baan u qiroonaya markaa ka sheekeynayo qisooyinkii waxyaabaha qaal ma jeclin inaan ila wadaago iyadoo ay saas jirto runtii waxaa hami anigu waxaa lahaa inaan wax barto oo aan riyadayga rumeeyo insha Allah mar uun way ii rumeeyi doontaa hadduu ilaahay ka raacno qof walba oo aan la hadlo amba nin walba oo soo waco amba qof walba waa dareemi kartaa ragga Soomaaliyeed qof qurbaha joogta waa dareemi karaysaa qofku uu soo wacaya shukaansiga uu soo wacay waqtiga saar kaga dhumiyo doonaya markuu soo waco wuxuu ku leeyahay marka tiraahay hay maxaa ku qorsheysan wicitaanka gada waa jiifanay wax baa rabaa inaan barto waxaa ma baranaysid anaga nimana wax baro weyn soo adiga maxay ka galaan adigu nin hadda tahamigaaga hadaysan hayn anigu waa gaari karaa Soomaaliya qof walba wuxuu ku leeyahay saas weyn ninkiisa haduu kiro waad niyad jabaysaa waxaad leeyahay qofka meesha joogo oo waliba nin rag ahaa wuxuu sameeyay waxdi ma sameey karaysid haddana iyadoo taa ay jirto aad baa niyad jabaysaa gabdhihii wuxuu ku leeyihiin waxbarasho haday tarayso wadankii waa joogi lahaa wax ka soo barlaa wadankii waa iskuul laga qasbina xagee wax ka baranay ma qurbaha hadda waxay baraya waxba kuma barayo yaraantaada kuma taas iyadoo jirto runtii aad baa weeraa waa dareemi karayaa xanuunka aan dareemayo saas iyadoo ay jirto baa waxa lagu yiri hadalkii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa nin baa wuxuu igu yiri inuu ku guursadaa rabaa okay guur maxmud walaal macaan hadda waxa ragga dhan iskaga xir waxa ay tahay oo aan ula hadlin nin dhan ma shukaansado wuxuu igu yiri okay ma di guursanaysaa ha
haddaad guursanayso maxma walaal macaan arrintaasaa rabaa arrintaas u jirtaa markaas wuxuu yiri waxaan ku guursanaya ma garanaysaa maadaama aan shaqeeyo inaa cunada iyo karis anima qadaama ah mas cunaa u kariyaa oh my god waa arrintii ugu yaabka badneed waa xanaaqay waa hadal aan maskaxdeeda aan ka goyn mar walbana aan rabo inaan hadafkaas ugu sareeyo aan gaaro oo dhaho hay cunada ragga noocaas inay iska jiraan runtii aad baa ugu xumaa hadallada ninkaas ugu yiri waayo wuxuu niyad jabiyay niyad jabkiis waxay iga darneed inuu idhaho cunada ay karinaysaa oo shaqay ma shaqaala ah ma shaqaalinimo ii guursanaya uu lacag walba isii iyadoo saas ay jirto runtii anigu waxaa lahaa asxaab badan soomaalidoo dhan asxaabtooda waa ka go-ay been lahaayo asxaab waxaa noqon ku cadaana mar walba markaa dhaho waxaasna sameeyaan rabaa waxay dhihi jirtee hey farxiyo waa sameyn karaysaa dadaal waxaan hubaa inay riyadaada kuu rumoobi doonto oo aad noqon doonto qof heerkaa aad sheegaysa maanta heerka weyn runtii waa farxaa mar walba iyadaa u dhawaanaya waxaa isleeyahay waxyaabo badan bay kuu sheegaysaa waxyaabay ugu dhiirigelin dadka kale soomaalida kale waxay aaminsanaayeen tan maxay tahay maxayna dadkaan u sheegay maxay waxba ma soo kordhinaya waayo qalbiga ay tahay saas marka ay tahay والله ويدير قلت هذا لا ما أنت وحي وصل عمر كقفك كودي كقول عن ما أنت تقدر قلها كنيت شبيه كله أنا لا يكره كي كلام عمر كحصة بدك تقولها ها ولا وها في عن وحصلني وحير وحوينا جارسة وقف وين أنت ومن وين كصبح كلا سو فرحة دير قلت سومالي ده ندانا سيرو بانكن هاي تا إذا يساس جستو فكرتها كلا وحي هاد kuwa Yurubta kala aad iska soo dhiibay wadanka jooga iskaga tagay markii kaan kala galeen kuwa buufisku galin iyagoo nolol xum ku jira bay wixii kaaga dhigay nolol macaan badan ku jiraan markaas wuxuu ku leeyahay ha waa kana sano waayana daamankeena soona waa been filter bay soo dirayaan ma fahmayaan aniga laakiin imaadeen hadaf lahaa hadafkaygu un baa ii muuqday insha Allah ku xariijinay hadafkaas إن أمر كان جونجاري دون هدوء بكرار نقطة لكن إن هذا النية شيء ولا السكوت مركز يقول هارون تي قلبي جاي حنوني مرة واحد كوير قناة يوتيوب أربعين سوبرتو مركز يوتيوب حاكم مقاواني السده ها تذك مركو حال كان أنا وما هو مالنا قبلها صومالية ولا الله هي قبر والب صومالي كريد مرة وانا قبر والب وجر وجبر ضمر إلى إن ندير كليو إذا هدف كده قفنا إذا ولا تشن أي سامي ستان وعمد ولا شيء قالته إبر وعمد ضد كوالا تشجر وشجر لكن هذا واحد وعن كجار وعن كنفتي ده إنجار إن ضد كده دو إجت كاميرا يا إن أشيك تحت المين أنت صومال أشيك لها أو إن يجبي لها واحد وعن كجار إن ضد كلا أشيك تود دو هالشنو بقى لأنه هو يدير جلينا يعني هدو حتى قانك أنا قال كل واحد إلين كوين بقال كريسة دلال تاسي وامد برونتي أدبان وفر حما مركب ولا الله يسومها لدولي بقفك قربها جوجا أدبي وادرت هنا لشيسة أدبي وادرت هنا قامك لقي قاطع أدبي وادرت هنا لشيسة نوح لكن وحنا قولت للع عضو هذا قف نرشع وكحن قفنا على شن قانك على سميسو وحاد تعيشها هكذا يجيبون وهدف كاجر هاسدين هبل بمجال هبل حكاجل هبل واحد روا السجا عادت نمدس لكن هذيك هذا هراء صعط وعايشين والله بلا ودجاريسة تاسوا هذا الكيجا وحن ولا راح عليها أبض ما هتصنتين قف كلبا لكن ولقي وحن هالما من هذا الكي أحا تاسا سمعنا صح ماذا كان وحى يقول يا كبدنت وحن جاه وحن مرة يا هذا هير عن كلنا شقي قلنا عن وحبرته taas waxay ugu dhiirigelinaysaa waa in nafsadeeda anfacaysaa inay gelin shaqaysatid inaad gelin waxbaratid insha Allah saasaan rajeynaya ee waxbarashadana doorkiisana laakiin hadda waxaa rabaa gelin inaan waxbarto gelin inaan shaqaysto hadduu Ilaahay ka raali noqdo Ilaahay waxaa ka barya hadafkayga inuu igu dhiirigeliyo oo noqdo qof hadafka ay jecel meel ka soo saaro mar uu waa rajeynaya in riyooyinkayga badan ay ii rumoobaan walaalahayga amaanta hor fadhiyaan aan si wacan uga sheekeeyo dhaho hey waxyaabahaas waa sameyn kartaa walaal haniyad jabin aniga kula hadlay haniyad jabin ka badan baa gaari karaysaa laakiin waxaan ku leeyahay Soomaali
talaha la wadaa inta Soomaali tala la wadaagaysan mar ma gaaris way ku sii liidayaan waxay iyaga ay rabeen inay sameeyaan bay ku leeyihiin waxay rabaan sameey bay ku leeyihiin so mid kale waxaan ku leeyahay xirfad aad ku shaqaysato laakiin ha lahaanin inaan saa maanta shaqadaan qaban xamaal weliga xamaalaha ku jirin oo noqon qof wax barta nafsadiisa anfaco la xirfad oo ku shaqaysto xirfadda jeceshaha baro marka hal xirfad laakiin maanta saas sameeya maanta saas meeshaas ka shaqo waa daaleysaa wala nafsadaada ha dhimin laakiin hal xirfad oo ku shaqaysata oo aad wadataa shahaadadiis meel kasta aad tagtaa tiraa hoo xirfadaana soo bartay ku muhiima cimriga inta ka dhiminaad saas sameysaa maaha taas waa mid weyna amba yaraa waxbarashada weynan iyo yaraan ma gashaa ku leeyahay hadaa weyn taxta waxaa baran kartaa haddii aad yar tahayna jaanis haysataa maanta waxaa baran karaysa kugu dhiirigelinaya waa oo masa wahlay ku dhahay dadaala idin la wax barta waa idin jeclaan Soomaali Maxamed Limaanti waa mahadsantii dhiirigelintiin subscribe-ka igu caabi inaad channel-kayga saartaan